السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروين مدنيال يدلين يردبا وحن آد يدينكم هادنقيا كقيب قلق آكسو قيب كشين مشروعا ده فرقة شقا أبورك دلين يردا أنيقو كو هادلايا أفكا أنو متليا hay-adda wadaniga ee Kaaba Microfinance Institution iyo afarta hay-adooda kale ee nagula jira mashruuca waxay kala yihiin Silatag oo degan Qatar, Shuraako, AFF iyo Kiva oo saddex hay-adood oo Maraykana ah. waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga ah ee aadna siiseen ee aad ka soo qayb gasheen xafladan. intaa markaan ka gudbo waxaan u gelayaa mashruucan Somaliland Youth Enterprise Fund. dhowr su'aalood baan ka jawaabayaa. mashruucan muxuu yahay? yaa loogu talagalay? sababuhu maxay ahaayeen? muxuu u qabanayaa matalan dhalinyarada ku magacaaba? horta ta ugu horeysa barnaamijkani waxaa loogu talagalay in uu shaqo u abuuro dhalinyarada hadday jaamacad ka soo baxeen iyo hadday maxaanku idhaahdaye vocational training ay barteen iyo hadday secondarygaba ka soo baxeen iyo hadday lahaan jireen baayac mushtar yaryar oo iyagu ay leeyihiin. waddankan sida aynu u ognahay shaqo la'aan ba'an baa ka socota. waxa ay dadkan populationku intuu ka yahay iyo statisticska sameeya 2012kii UNDP-du waxay ku qiyaastay Soomaaliya oo dhan in 70% ay dhalinyaro yihiin. jaamacadaha waxaa ka soo baxa sanadkiiba 3,000 Somaliland, iska daa secondaryyaasha. waxaasoo dhan waxa laga yaabaa in ay 80% ay shaqo la'yihiin. cidna laguma canaanan karo waayo dal aan la aqoonsanayn baynu nahay. dowladda laguma canaanan karo waayo haykalkii dowladnimo ayay noo haysaa iyada oo waxaa yaray customiska ka hesho iyo dekedda iyo aan lacag kaloo buurano bilateral funds iyo midnaba helin. iminkaabay la bilaabay in toos wax loo siiyo. marka waxay su-aashu tahay yaa wax ka qaban karaa? bulshadaa ka qaban karta. bulshadu qof waliba halku joogo ama hay-addu ka shaqeeyo ama maxaanku idhahdaaye xafiisku joogo ayuu odhan karaa talow miyaan wax ka qaban karaa shaqo la'aanta? 3 qof haddaad shaqaalaysiiso ood fikrad la timaado wax weyn baad qabatay. qof qura haddaad shaqaalayso wax weyn baad qabatay. marka shaqo la'aantu dhalinyaradeenna dhibaato weyn bay ku haysaa.
waxaad moodaa inay rajadiiba lumiyeen waayo Yemen oo ololeysa ayay tagaan Saharaha Liibiya ayay tagaan badda Mediterranean-ka meydkoodii baa ka buuxsamay dhalinyaradaasi waxa weeye dhalinyaradii the men of tomorrow weeye dhibaatada kale haysataa waxa weeyaan intii maxaan ku rahdaaye waddanka lagu soo noqday iyo 15 sano ka horreeyayba dadkii dhasha dunid aad u degan meera xataa furitaankii baa batay reerihii la yaqiinay deganaa maaha marka inankii xaggana raran iyo inantii xaggana raran bay kaga fadhiyeen islaantii odaygii Soomaaliya maxaan ku dhahdaaye iyo markuu gurigii ka soo baxana rajo badan ma arko marka taladii waxay noqotay siday u odhan lahaayeen talow maxaan sidan kaga baxaa jaamacaddii xumayd baan tegaya afartii buuga xumaa isay macallinkii xumaa baan soo dilay wuxuu dhan waa negative ilaa iyo baddaa lagu daadanayo horta dhalinyarada qofku hadduu halkan wax ku qabsan waayo Los Angeles kuma qabsan karo taa waxaan doonayaa inaa ogaataan sababahan nagu kalifay 2 sannadood iyo badh baa barnaamijkan maanta halkan aan ka furaynaa anaan wax kala qaban taasi sababihii bay ahayd maxaa nagu kalifay muxuu qabanayaa baan u soo noqonayaa su-aasha mashruucani waxa weeye sanduuq loo samaynayo dhalinyarada oo keliya in wax laga amaahin karo waxaan bilaabnay ma dhacaan waa kii ugu horreeyay sanduuq noociisaas oo Somaliland laga sameeyo waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu sii weynaado oo dad kale ka sii shaqeeyaan wuxuu haddaanu bilaabmin koobka haddaan halkaa laga qaadin 100 sano oo leeyahay laakiin haddii cajaladu wareegto oo la bilaabo barakadana Ilaahay la weydiisto waa la sameynaya hay'ado badan oo waxa jira ka shaqeeya dhalinyarada Hafayoko shaqadoon Soonyo gaafo siyaabo kala duwan bay gidigood ula shaqeeyaan dhalinyarada wax weyn way tareen mashruucanina waxaa la wada taray dhalinyarada ayuu sii xoogaynayaa marka waxa mashruucani marka haddaan gudaha u sii yara galo waxaanu doonaynaa business ideas casri ah innovative waqtigeeda la socda halkana maxaan ku dhahdaaye maqaaxi yar ka samaynayaa maxaan ku dhahdaaye farmasi yar baan ka furay isagoo 30 farmasi meeshay jiraan ma waxaanu doonaynaa ra'yi yaal dadka la siinaya waa dadka la yimaada ra'yi dhaxal galeena cid walbana la siin maayo
qofku waa inuu yeeshaa entrepreneurial spirit uu ahaadaa maskax businesseed sida nimanka halkan ugu sheegayay dad baa aroortii 7 ilaa 1 shaqadaa jecel oon jecleen business iyo hawshiisa iyo waa laga iibsan waayay iyo waxba toona dadna waa business minded dabkaasay leeyihiin kuwana waxba kuma jabna annagu kuwanu doonayna waa kuwa marka siyaabo badan baa loo eegaya psychological taasaa noogu weyn mid kalaan ku daraya saan u sheegay 2 sannadoodii bar baan ka shaqaynayay lacagta iminka mashruucan 3 sannadooda waana amaahan nalama siin siday noo dabaqday shaqo la'aanta dhalinyaradu halkaasaad ka garan kartaan dayn baanu qoorta suranay sida noloshiinu isbeddel u yeeshay waxaan ku boorinayaa dhalinyarada hadalkan negativity-ga badan leh maxaa yaalkan aan iskaga huleelo maxaan ku dhahay baddaaba la ii qaatay ma kul baa nolol haystaa way la beddelaa language dowladda innagaa soo dooranaa haddii fikrad lala yimaado oo loola tago siyaabo badan bay u caawin kartaa wasiirkan u tegayba ama agaasimahan u tegayba ama wasaaradda aan u tegayba giddigood aad bay mashruuca ugu farxeen input fara badanna way leeyihiin oon hadhow ka wada hadli karno marka hadalkaygii waan soo koobayaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa maanta inaynu isugu nimaadno munaasabadan runtii lagu daahfurayo mashruucan shaqo abuurka ee dhalinyarada Soomaaliland laga caawinayo sidii wax u samayn lahaayeen business aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa hay'adda kaaba iyo in inta kale kala shaqeysay gacan ka siisay waa run waxa weeye marka eega Soomaaliland maanta dadka ugu badan waa dhalinyaro dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waddanka jirana waxa ka mid ah dhalinyarada ay runtii duruufaha ku gadaaman hadday tahay shaqada hadday tahay tacliinta hadday tahay qaybaha iyo waxyaalaha kala duwan runtii ay tabanayaan waa wax runtii muuqda oo maanta waxa ugu weyn ee la hadalhayo ama laga hadlayo ama lagu mashquulsan yahay ay arrintaa tahay waxa batay dadkii arrintaa ka shaqaynayay waana wasaaradda runtii aan la shaqeyno hay'ado badan oo kala duwan oo wadaniya oo iyaguna waxa weeye xil weyn iska saaran arrintaa sida ay dhalinyarada u xirfadeyn lahaayeen ay ugu samayn lahaayeen skills iyo wax magaranaysa ay ku shaqo tagaan qaarkood waxa weeye ku hawlan yihiin sida gacanta wax ugu gelin lahaayeen arrintaas runtii waa arrin aad iyo aad imika meesha tagtid runtii inta badan laga hadlayo waana waxa weeye dhibaato jirta inagu Soomaaliland haddaynu nahay dalkeena waan ka wada warqabnaa duruufaha inagu gadaaman ee kow ka tahay waxa weeye aqoonsi la'aanta waxay faaduma maalintoodan meeting isugu nimid dadkii isu yimiyo laba dhibaato baa Soomaaliland runtii arrintan sababa shaqo la'aanta oo ay tahay dalkeenu waxa weeye aqoonsi ma haysto baanankii waxa weeye dadka maalgelin lahaa wax amaahin lahaa kaalintoodu way bannaan tahay dadkii kale ee waxa weeye kambaniyadii adduunyada la xiriir lahayd maal gashan lahaa ma jiraan marka runtii arrintaas waa arrin dabar ku ah oo waxa weeye caqabad ku ah xaqaa dadkeenu ay leeyihiin ee ahaada la macaamilka adduunku inuu waxa weeye uu xadidan yahay faaduma arrin kale ku darta waxay jiraan inta labaad dhibaatada dadka u doona fanka inay dadkeenu waxa weeye shaqo runtii la abuuro laga shaqeeyo waxa jira dad fara badan oo adduunka shaqooyinka ay waxa dadka wax amaahiya oo ay daba socoto arrin aan inagu waxa weeye diinteenu aanay noo saamaxay marka dadkeenu 100% muslima ayaa waxay jira caqabada labaad runtii ee la haysato dadkayga fanka doonaya muddo dheer bay nagu qaadatay mashruucan marka waynu dareemi karaynaa runtii duruufaha inaga waxa weeye hor yaala dalkeenu uu soo kabanayay hoosaynu ka soo bilownay meelihii runtii de xoog la saaray priority-ga ahaa waynu ka warqabnaayo tacliinta iyo nabadgelyada iyo waxaas hadda lagu mitido
maantana runtii waxaan isleeyahay meel fiican ayay maraysaa waxaynu maanta kulligeenu guntannahay insha allahu inaynu ka qayb qaadanno sidii loogu samayn lahaa qorshe cad oo waxa weeye shaqo lagaga abuuro dalkeenna dowladduna runtii xil weyn baa arrintaa ka saaran xilka ka saaran waxa weeye iyadoo haynta iyo duruufaha iyo waxa jiroo dhan aynu garan karno haddana xilka saaran waxa weeye in iyaduna inta karaankeeda ay dadaasho dadaalkaana runtii way wadaa weliba dadaalkaasoo labanlaaba ayay dowladduna waxa weeye hormuud ka tahay shaqooyin ay abuurtay oo dhallinyarada waxa weeye ka qaybgelisay baa jira dadaallo badan oo la sameeyey baa jira kalsamaan badan oo ka muuqata xukuumadda iyo hoggaankeedaa jira marka waxaynu doonaynaa inaynu waxaasoo dhan oo la isu geeyo runtii aynu ka dhalinno fursado mustaqbalka aynu inagaga baaba'do mushkiladdaa waxa weeyeyna hortaada annaguna wasaarad ahaan marka la yidhaahdo dhallinyarada waa wax runtii aan meel keliya ku istaaginoo mandatekaa dhallinyaradu waxa weeye dad fara badan baa farafareeyo oo hareeraha kaga jira waayo waxa weeye dhallinyarada qaybo kala duwan bay u baahan tahay kii tacliimta ka shaqaynaya dhallinyaradiibuu ka shaqaynayaa kii shaqaabuur ka shaqaynaya dhallinyaradiibuu ka shaqay kii caafimaadku dhallinyaradiibuu caafimaadkoodii hagaajinaya marka waxa weeye waa arrin kale iska tuna dad fara badan ay soo gelayaan laakiin wasaarad ahaan runtii waxaanu dee dadaalkayga ugu weyn uu yahay in la sameeyo sidii loo joojin lahaa waxaa jira in sanduuq runtii la abuuray oo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu ku dhawaaqay sanduuq la yidhahdo sanduuqa horumarinta dhallinyarada somaliland oo runtii waxa ugu weynu ka shaqayn doonaan oo noqon doona waxa weeye shaqal abuurka iyo sidii dhallinyarada looga saari lahaa waxa weeye hayn la-aanta sharcigiisii iyo nidaamkiisii iyo waxa qorshihiisii baa la wadaa dhawaana insha allah golayaasha ayaa ansixin doona waxaan jeedaa marka la isku daro guud ahaan dhallinyarta ku nool somaliland guud ahaan waxa weeyaan 73 inta bilaa camalkii waxa weeyaan 62 taasi waxay caddaynaysaa in dhallinyarta soo kacday ee waddanka soo kacday badankooda ay bilaa camal yihiin taasi waxay keenaysaa markaa waxay saameyn ku leedahay dhaqaalihii waxay saameyn ku leedahay nabadgelyadii waxay saameyn ku leedahay horumarkii haddaba dhalinyar marka la yidhaahdo caalamka muxuu dhalinyar u yaqaanaa malaha dadkan meeshooda fadhiya badankooda dhalinyar bay isku wada haystaan mana malaynayaan dhalinyar maxaa lagu cabiraa hay-adaha caalamka ama UN-tu dhalinyarta waxa u yaqaanaan da' gaara qaarkood waxa u yaqaanaan inta ay ugu badan tahay 24 halka ay ugu hooseyso laga soo bilaabo 12 qaarkood waxa u yaqaanaan da'da ugu hooseysa waxay ka soo qaataan 12 ta u sareysan waxay ka soo qaataan 35 inagu haddaynu nahay haddaba Somaliland waxaanu leenahay policy dhalinyarta ah bolosiga dhalinyarta ah ee Somaliland leedahay waxa weeyaan 14 ilaa 35 weeyaan aynu leenahay Somaliland taasi waa dhalinyar weeyaan dhalinyartu waxay u qaybsan tahay 3 qaybood markaynu dib ugu noqono qaybta koowaad waxa weeyaan waa dhalinyar wax baranaysa waxbarashada ku jirta kuwa aan wax baranayn oo baadiye iska jooga kuwa la isku oranayaa number 2 waxa weeyaan dhalinyarta waxna barata dhinacna ka shaqeysa waa faceka labaad faceka saddexaad waxa weeyaan dhalinyarta wax barata dariiqii xaaska ama family-gana ku taagan saddexdaa qaybood ayay dhalinyartu u qaybsan yihiin guud ahaan miyi magaalo meesha doolan baa joogaan markaynu eegno millennium development goalska caalamku uu leeyahay ee caalamka dhexeeya waa 8 gool goolka ugu horeeya ee ah sidii faqriga loo yareyn lahaa marka kala tixraaco waxaad ogaanaysaa in dhibaato weyn ay naga haysato Somaliland ahaan waa aynu u baahannahay in wax badan laga taro sidii dadka dhaqaalada kor loogu soo qaadi lahaa gaar ahaan dhalinyarta haddii aynu dib ugu noqonno aynu eegno waxa dalka aynu soo gelino markaynu eegno oo iyana saameynaysa dhibaatada dhalinyarta saameynaysa ka mid ah ee dhinaca kale ee negative-ka ah waxa ka mid ah iyadna jaadka aynu waddanka soo gelino cuntooyinka waddanka ama waxa waddanka soo gelino 30% waa jaad weey 30% ka jaadkayhi waxay dhibaato u leeyihiin dhalinyarta waxay dhibaato u leeyihiin mustaqbalkooda waxa ay ku hagayaan mugdi madowga ku hagayaan waxa kaloo dhiga 25% waxaan inagu leenahay maaha waxaynu dibadda ka keenno 25% sonkor baynu isticmaalnaa waa baahida labaad ee iyadna muxuu ahaa 10% sigaar baynu isticmaalnaa oo soo dejinaa
inta ugu badan ee waddanka aynu keenno saddexdaa shay baa ugu كل تولد الليرة ولا نشجع جاي ويصير باقي نشجع جاي وحي كان مثل هاي دولتين أنت كبعدي وحكم لها أنا بقول أرضي كفايدة ستي أما الليرة كفايدة ستي برنامج أيهروف ين هيدا لوسهم يو كابا ميكروفوناس تاسيو اللي بتشوفه مدة هاتن كسمان صدق سنة waxaan maleynayaa waxay noqonaysaa 2011kii taasi oo lagu maalgeliyay lacag marka dan ahaan ka eegto aad u yar haddana maanta 3 sano ka bacdi faa'iido weyn ii haysa aniga iyo dhalinyaradii kale nagala faa'iidaysatayba waxaan ku jiraa inta jaamacadda sanadkii u dambeeyay gaar ahaan kulliyadda engineering-ka cid ma weydiiyo buug iyo qalin iyo nusaacad toona dukaan iyo booshari baan sameeyey xaafaduna yaroo lacag ay ku qaatay arrinkii si fiican buu socdaa maalintaan u baahdo buug yaroo isagoo soo baxay doonaya inaan iibsado jaamacadda dee abbana lama hadlo hooyana lama hadlee maqalkaan ka sii ramadaaye anigoo haddana hadhow toolo kaabaya markaa waa faa'iido intaa ka bacdi haddaan kaga yimaado sharaxaadaasi businesskaygaasi uu sameeyey haddii aan usoo noqdo xidhiidhkii sidaan ku helay fursadaasi maalin maalmaha ka mid ah ayaan aragnay joornaalka oo lagu soo qoray arrinkaasi oo ay fulinayeen hay'adda DRC iyo maxaa dhahday Denmark dadweynaha Denmark ka bacdi arrinka waa soo balgareynay waxaa fangareey waa fulinayso hawsha iska lahay dhowsahob oo aad uga amaanay intii ka bacdi wala kala shaandheeyay waxaan ku soo baxnay dad aad u tiro badan ka bacdi haddana facekii labaad waxaan qaadanay training ama waxbarasho taasoo ku jirnay muddo 4 bilood ah sida loo maamulo small business ama ganacsiga yaryar oo dhamaysanay lacagtii bana lagu wareejiyay wuu hirgalay intaa ka bacdi kaaba nagama harin waxay noo sameeyeen insaaniyaad kale oo aad u tiro badan hadday tahay talo oo waxa ugu muhiimsan ee la siiyay waxa jirtay mar dhexe oo sanad iyo waxoogaa jiray kolley toole businessyadii badankooda way faa'iideen qaar ardaydeedii kamid 130 bay haayeen 130kii qaar badan way fiil garoobeen laakiin waa intii ugu tirada yaray badankooda wada shaqeeyaan waxaa jirtay kaabis dambe ay nagu samaysay oo abaalmarin ahayd iyadana mar dambe waxaa kaloo iyaduna jirtay imika in ay wadaan hawshana lala soo socodsiiyey marka la sameynayo oo iyadu laakiin ka duwan tii hore taayadii hore waxay ahayd garaan ama annaga lahayn wax lacag soo celinay ma ahayn laakiin imika ay tahay ama kuna soo dhiirinay wadnana inaan sameyno برنامج عصب أما بزنسية عصب كويجي هرانا في وضعنا دولنا نحكي كسي بلادنا أما برنامج كذي سي صعدة وحمر لبعض عن أرض سودوينية مشروعية نوعا وخلاء إن نهلنا سيدي كل تولي شيء يقسموه وحوري متشران بنقيا ممكن عاكا مع هذا واحد شرتي وقتي أنا جيو groupkayga qayb kale kamid ah aan tagnay bankiga Islaamabad aan isniri ka qaata waxoogaa diina aan doonay mashruuc ballaaran oo ahaa haddana markii dambe waxyaabo badan ay xireen oo noo saamixi waayay inaan fikradeedii hirgelino ama aan qaadano maxaa dhahdaa fankaan doonay markaa laakiin imika aan u aragno in ay suuragal tahay إن أنا كقيب قلنا برنامج كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان سلام يا دمان ما دخل شرفت على هذا السجود لي معمل كعبة دمان بالشدة شرفت على يدنا السؤال سمي وحنشعل هذا القوان أننا هذا كير هذا وحنا عيدتك يقول هي عيكابو مال جنسي أما عاوسي كعن قبتي أنا كان عصرية ومركها شقعوها متى كان إن بدن بعد المدير اللي جهز لي لكن أنا وحنا هي هويويكا
ka ganacsada dalka gudihiisa magaalada Hargeysa mar labaad ayaan kaawa u mahadnaqayaa aniga oo ku shaqeeya koofeer ayaan bedelay oo ku bedelay Islamic Beauty qaybna aan sameeyay branch carwo aragsana waqtiga dhaqaalahaygu u qoobnaa carwada iyaga ayaa iga caawiyay oo maalgelinta ii sameeyay anoo ka fikiray markii aan beauty-gi xiray beauty Islamic ka dhigay culays badan inuu igu yimid raadiyay si aan deyn karo ayaa kaaba oo nidaam Islaami wax ku bixinaysay aan raadkeeda galay markaan xasuusta aad baan u dareemayaa shiisro dhammaan aad baan u mahadnaqayaa way ilaa hawl kaleen waxay la qabeen kaaba way kaartay aad baan u mahadcelinayaa meheradii way kortay waxqabadka u muhiimsan ee sameeyay waxay waqtiga aan bilaabayay aniga oo aan ahayn miisaska aan shaqo abuurka ku samaynayo ayay rashiido waxaan bilaabay carwo samaynaya koofeerkina waa bedelo nidaam Islamic Beauty baan ku bilaabayaa waxa la sheegay in nidaam Islami wax ku bixinaysaa runtii wuu sameeyay miisaskii markashkii aniguna wixii hayay kale waan ku hawlgalo ku bilaabay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan idin sheegayaa inay kaaba hawl badan la qaban karto dhalinyarada soo koraysa waxay la qaban kartaa waxay muuqato hooyooyin sidoo kale waqtiga ay joognay wax la soo qabatay waxay muuqato dhalinyaro badan oo iyaguna waqtiga shaqaabo lahaa sida inay kiimika hadlayo kale muddo 7 sano ah waan soo wada shaqaynay biidillah inaan waxaan ka filaynaa inay weliba wax badan la sii qaban doonto kale halkaasaan kaga baxaya runtii aan waxaan ku hadlayaa magaca hay'adda shuraako oo la shaqeysa kaaba marka hore waxaan aad ugu mahad celinayaa Faadumo oo runtii gelisay 2 sano projectkan markii ugu horeysay soo approach gareysay ama ay noo soo xidhiidhay sida ogtihiin number figad waxay hadii hor qaataan grants marka anagu dadka kuma xidhno grant waxaan ku xidhnaa loans runtii number figad kala way diideen businessadooda siinaa loans laakiin number figad uma baran inay qaataan loans runtii Faadumo u dhabar adagtay waxay mas'uuliyadaas ay qaaday on behalf iyadoo matalisa dhalinyaradii marka runtii taan aad baan ugu bogaadinayaa inay grant loanka mas'uuliyadda weyn qaaday iyadoo si ay ugu qabato shaqo waa burto dhalinyarada annagu ka wasaaradda waxbarasho ahaan waxaanu haynaa waa dhalinyaro waa caruur waa da'da soo koraysana marka wax la baro maankooga la dhiso waxa ay marka ay laga yimaado in aqoonta uu qofku xumaanta uga leexdo wanaagana uu ku qaato waxa gooliskoogu yahay waxa weeye waa inay shaqo helaan weeye tiimkii kaaba oo iyaguna halka wada fadhiyo badankoodii iyagana aad baan ugu mahadnaqaya anuu waqti badan ma qaadayo laakiinse dhowr kelmadood baan odhanayaa horta mashkiladan maanta waddankeena ka taagan shaqo la'aanta haddii aan afka lagu badin waxaan baaray raadiyoyadeenna iyo jaraa'idkeennu bal inta ay ka hadlaan ama ay soo hadal qaadaan shaqo abuur ama shaqo aad iyo aad bay kelmaddaasi ugu yar tahay wixii aad doonaysaana habeen keliya aan kaba soo dhacaan waa inaynu ku hadaaqnaa shaqo abuur oo aynu mar walbaba waxa laga xaajoonayaa uu hadalkiidu u bato ayaan rajeynaya waxaad ogtihiin in adduuweynaha aynu nidhaahdo hore u maray in lagu xisaabtamo xoogga dhallinyarada oo la yidhaahdo 2020 waxa soo baxaya intaas oo shaqaale oo xoog leh ayaynu u baahannahay markaasaa lagu soo xisaabtamayaa markaasaa tacliintoodii ama maaragtay wixii warshadii ay ka shaqaynayeen lasii diyaar gareynaya that's why ay iminka Yurub iyo Maraykan kadib markay dhalmadii dumarkii ay iska joojiyeen ay u baahdeen xoog weyn oo xoog badan oo maaragtay haddii biilmaayo iyagu ay ka faa'iidaystaan waxa aan iminka soo jirnay ilaa 20 sano waxaanu siinay oonu amaahinay
ilaa 20,000 oo qof ayaanu maaragtay wax siinay waxyaalaha aanu barno waxa weeye business plan-ka ayaa ka mid ah wax baanankii hore la soo shaqeeyey dowladdii hore la shaqeeyey oo noo yimid 20,000 ee qof waxaanu aragnay nin allah u naxariistaa dhintay imika dhowr bilood sii mootanaa oo bangiga horumarinta development bankii hore amaa ka qaadan jiro beer weyn lahaa marka waxaanu u diyaar garaynaa inay la yimaadaan waa laguu soo gelaya albaabka iyagoo cid walba waa u furan yahay cidna looma soo kaxaysto lama yidhaahdo wasiiroo kaale qoladaa igala hadal haddii biid maayo inamadow dee il gaara igu maaragtay dee igu eega albaabka iyagu qof walba waa u furan yahay